runtii dacwadan waxay ahayd dacwad 2 sano soo jiitamaysay eedaysanahana wuxuu suubiyay video oo 15 September 2020 ayuu video ma aragtay soo daayo uu leeyahay hal dilo maxaa la yiraahdaa al-shabaab uu la hadlayo leeyahay naagtaas hal dilo wixii dambi ka yimaadana anaa qaadayo iyo inuu yiri maxaa la yiraahdaa dhigeedana anaa bixinayo markaas aniga waxaan ku sugnaay magaalada Muqdisho waxaan ahay wali wasiir oo ma aragtay xukuumadda wasiir u ah arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka arintaas markay dhacday aniga waxaan suubiyay dacwad waxaan u gudbiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Netherlands marka horta waxaan jeclaan lahaa dhageystayaasha iyo daawadayaasha intaba inaan u faahfaahiyo dacwadan waxa waaye civil case ba aha waa dacwad criminal case ah taas ayaan rabaa horta inaan hoosta ka xariiqo sababtoo ah qofkan dacwadda aan ku soo oogay waxay ahayd in uu nolosheeda halis geliyay asagoona la hadlaayo group argagixisa uu leeyahay qofkaas hala soo dilo sida ogtihiin aniga 3 sano iyo ka badan ayaan wasiir soo ahay arrimaha xuquuqul insaanka intii ka horeysana waxaan ahaa qof ma aragtay arrimaha civil society ah oo arrimaha xuquuqda aad ugu danaysa marka freedom of speech ka aniga waxa waay arrin aan u taageerayo hase yeeshee freedom of speech wuxuu leeyahay limitation wax xadidaya oo qof intaad soo baxdid TV soo hor fariisatid ma dhihi karto qofkaas la ii soo dilo taas waxay ka baxaysaa xindaabka freedom of speech ka arrintii way soo socotay covid ayaana soo dhaxgalay delay badan ayaa dhacay sidaas darteed sidii hawshu u soo socotay ilaa markii dambe bisha November 10keedii maxkamadii inoo yeertay intaas waxaan ku sii darayaa eedaysanaha oo ah muwaadin Soomaali ah oo wadankan degan ka faa'iideystay xuquuqda wadankan ka jirta iyo nabadda ka jirta in uu ma aragtay isagoo gurigiisa jooga oo qof muwaadin Soomaali ah jaga haysa dhibaatadaas wadankeena ka jirta oo amni darrada iyo aad ogtihiin kulligiin ku shaqeynaysa inuu ma aragtay intuu kafe u soo cabo soo yiraaho qofkaas hal soo dilo dhigeedina aniga qaadayo waxa way horta wax oo dhaqankana ka baxsan bini'aadamnimadana ka baxsan marka arrintaasayto way soo socotay finally alxamdulillah waxaan nimid bishii shalayaan maxkamadii isla hor nimid arrinta horta oo haddana muhiimka ah waxa waaye markaas kaliya kuma harin videoyaal kale oo follow up ah oo gaaraya ilaa soo gaaray ilaa March 2022 ayuu arrinta waday oo hal goor xataa qofka hadii qalad iga dhacay uu dhihi karo maxkamadda waxyaabaha dambigiisa culsay waxa kamid ah 2021 kii wuu sii waday 2022 kii wuu soo waday marka that's also waxyaabaha maxkamadda ku qasbay ee aragtay qof oo ka xumaada inuu san ahayn iyadoo aysan wax cudur daara yeelan karin in qof la yiraahdo hal soo dilo haddana markaad fiiriso muxuu u cuskaday inuu adiga kugu tilmaamo hanjabaadda noocaas oo kale inuu ku siiyo muxuu u cuskaday wuxuu horta sidaan ku sheegay wax loo cuskado oo runtii oo qil loogu yeeli kara ma aha qof xaq u leh inuu qofka kale ilaaha qofka bini'aadanka abuurtay markii tiisa timaadana meel alla meeshay adduunka ka tahay waa geeriyoonaya laakiin qof xaq u leh
ama inuu qofka gaalaysiiyo ama uu yiraaho hal iisoo dilo waxa waaye dhiigaagii ala xalaalsaday sabab horta aan dhihi kara ma jirto laakiin waxaan sheegi karaa waqtigaas aniga shaqada aan hayay aniga horta wasaaradda shuruuc badan aniga waxaa mas-uuliyadeydu ahayd xuquuqda daryeelka haweenka caruurta dadka naafada ah in shuruuc xuquuqdooda badbaadisa u dooda inaan ka shaqeeyo aniga marka waxaan gudanayay shaqada la ii idmaday marka shuruucyo badan ayaan ka shaqeeyay oo ay igala shaqeeyeen rag Soomaali ah looyaro ah magaalada laga yaqaano oo professionkoodana si fiican loo yaqaan sharci marka waxaa jiray sharci la dhahay sharciga dambiyada jinsiga oo inta badan Soomaalida aysan aqrinin ummadeena Soomaalida ah wax lama aqriyo go'aan waa la iska gaaraa qof raba inuu wax aqriyo ama inuu waxa yiraahdo war waxaana la sheegay bal horta aan soo hubsado horta ummadeena kuma jirto ilaaha waxa uga bariyaa marka kuwa noqdo inay wax aqriyaan inay noqdaan sharci Soomaali loo suubi haween in lagu ma aragtay badbaadiyo saxaafadda waa la socotiin maalin kasta kufsiyaa dhaco sharcigaas marka la qoray waxaa qoreen looyaro marka sharcigaas uu ninkan daba socdo arintaas uu ka hadlay si qaldan uu uga hadlay laakiin taas ma u siinayso inuu dhiigayga xalaalaysto marka horta taas ay ku timid wuxuu yiri qofkaas la ii soo dilo anigana waxa waaye Soomaaliya waxaan rabay sababta aan arintan u suubiyay oo waqti iga galay waxa waaye inaan barano waaye qofka waxa waaye wuu sheegi karaa waxa uu aaminsan yahay wala inaan kugu ixtiraamo waxaad adiga aaminsan tahay mid kalena horta inaan waxa iska hubiyo waa laakiin waxaan rabay dadka Soomaaliyeed inay fahmaan dambi hadaa qof ka gashid haddana aad joogtid watan sharcigu ka socdo in accountability ay jirto meeshaan hadda waxa waaye dadkii oo dhan YouTube ay furteen meesha saa la wada fadhiyaa waxba opinion la suubinaa horta social media waxa aad u fiican waa nooc kamid ah dimuqraadiyada dadku inay ma aragtay ku kala faa'iideystaan laakiin in la fahmo waaye 2 sano ay qaadan kartaa 3 sano ay qaadan kartaa laakiin in oo ma aragtay limitationka uu jiro sharcigana uu mar walba ay tahay inuu ka sareeyo waxaan rabaa inaad sawir iga siiso marka maxkamaddu ay aad tagteen sidii ay maxkamaddu u guudatay labadiina markay idin dhageysatay iyo go'aankii maxkamaddu ay soo saartay inaad nala wadaagto horta eedeysanaha wuu fadhiyay of course lawyer buu haystay aniga dacwo criminal maadaama ay tahay prosecutorka ayaa dacwada soo oogay aniga lawyer waa haystay laakiin qofka dacwada criminal case ka qaadayo oo aniga difaacayo waxay ahayd prosecutorka wadankan because ma ahayn in civil case ma ahayn waqtay waxay ahayd dambi crime marka horta waa ku qanacsanahay inkastoo waqti ay qaadatay laakiin wixii soo daaho ayuu qeyrku ku jiraa waqtigeedii waqtigaan uu ahaa marka horta ilaahay mahadiis wayn oo anigoo ma aragtay nabad qabo inaan wadankan imid oo ma aragtay xuquuqdeedina aan helay of course asaga xuquuqdiisa dadka waa loo dhowraayo oo su'aalo waa la siiyay laakiin aniga shakhsi ahaan haddaan taa ka hadlo qofkaas ma ahayn qof sinaba u fahmay dhibka uu geystay ma suubinin wax oo ma aragtay apology ah ma ka muuqanin sheekooyin kale iyo civil war wax ka dhacay iyo grievance uu qabay uu ka hadlay laakiin issue-ga meesha yaala oo ah in uu ma aragtay yiri qofkaas la soo dilo ma ila ah inuu fahmay wasiir marka
ما إسلام هاي إنه ساس كوجهن جو وحبا كدم بي تذكر الاستعمال دي سلم والله ودع كرتا ودع كرتا لكن فيري at the end of the day ما عرفتي مسؤولية هذا إسكاله هلا قدم بي لعك هالوجوسية يعني الوجوسين أنا يوم هاي والوجوسية أما ده كدم بي واحد معقولة واي لكن at the end of the day قفك هادو أو ما عرفت دنبي قفك قالي لقونا حكومي أصلا واي نتيجة دعوة محي نقطة نتيجة دعوة وحي نقطي انت هرت بروسيكوتركا وويديستي والهلي oo dhinacaas waa ku faraxsanahay laba sano oo probation uu ku jiraa waxaa jira restraining order oo ah inuusan ila hadli karin inuusan dad igala hadli karin inuusan wax iga qori karin inuusan sinaba contact ila geli karin uusan soo qaadi karin laba sano gudaheed haddii oo arrintaas suubiyo automatically xarigu aada okay jiraadku warbixin lagu qoray aqriye waxa ay sheegayaan in sidoo kale waxyaalo kale oo shaqo lagu xukumay saacado badan ha community service waa jira laakiin waxa important ka waxa waaye in oo periodka oo probationka laba sano oo yahay oo sinabana uga hadli karin haddii maaragtay وصوبيانا it's jail time waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo laga yaabo sidoo kale in jariimooyin loo geystay wadankan ku nool ma isleedahay dacwadan aad gudbisay xadgudubka ah lagu sameeyay adiga inay albaab u furayso dad badan oo sidoo kale ah oo dad wadamadan galbeedka jooga ay taadi ku sameeyeen inay u furan tahay inay dacweyn karaan maxaad isku la dardaarmaysaa dadka noocaas oo kale ah والله سانكو شيء أنا قرنت عن وحن أسوبية قف وزير وحقها وحقوق الإنسان هذا أنا مرك حقوق ذو استاجن كوا كلمة ما هو advocate كرين كرو مرك كوا وحقيقة هيد حقوق ذي إن صار عصدا لبا إن النقطة كيس qof kasto oo inuu kaga waanto oo Soomaali ah oo waxaan oo kala dadku la kaco inuu ka waanto inuu ogaado in looga daba imaan karo meel alla adduunka meeshuu joogo in lagu qabsan karo lagu dacweyn karo marka inay uga waantoobaan waxa waay runtii arrin oo aniga aad muhiim iigu ahayd laba waxaan kula talinayaa muwaadin haddii saan oo kale loo ku dhacdo inuu ogaado inuu ma aragtay uu dabageli karo waqti badan ay u baahan tahay waxay u baahan tahay juhdi badan inaad gelisid your own investigator inaad noqotid oo adiga evidence kaaga aad keensatid laakiin sabarna waa u baahan tahay iyo ilaahay inuu kula galab garo intaasaa marka muhiim ah qof kastana waxaan kaaga aan ma aragtay runtii aan ku bogaadinayaa وفكرة waa dhiiban kartaa laakiin iska ilaali freedom of speech waxay leedahay xayndaab ilaalinay dambi hadaa gashidna meel alla meesha joogtid waa lagu imaan karaa mar walba waxa waa qof sharciga ka sareeyay ma jirto ugu dambeyn waxaan ognahay in wadankeena Soomaaliya weli garsoor u liito xuquuqda insaankana aad loogu tunto رجمك قبضة مسبق الدو الصومالية وكذا قنقر قصور عادة يحقوق الإلالية يحريد قفك وسجارة منها لو دورة نظام كانوا كهر قال كرام. of course محنو دي ذا Soomaaliya waxay gaartay dhinacyo badan ee ma aragtay ka gaartay horumar ka gaartay howlo badan oo la qabtay waa jiraan dawladan tii hor dawladan ma aragtay runtii dad mas'uuliyiin waaweyn ayaa ka shaqeeyo ma aragtay in sidii ma aragtay loogu suubin lahaa garsoor dadku u garsoora
anna waxaan runtii aaminsanahay waxa ma aragtay oo Soomaali kala dadka kala reebi kara waa garsoor shaqeeya waxaan aaminsanahay ay intaan ka dhageystay madaxweynaha inuu ma aragtay Xasan Sheekh priority-giisa ay ku jirto marka runtii waa ku kalsoonahay in oo ma aragtay garsoor shaqeeya la heli doono